madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo khudbad ka jeedinaya kulan lagu qabtay Muqdisho ayaa codeer ku sheegay in gobolka Banaadir uusan mudnayn mas'uul loo soo magacaabo balse ay tahay in si degdeg ah loogu sameeyo matalaad dhab ah. Axmed Madoobe ayaa xusay in ay muhiim tahay arrintaasi hadda kadibna aysan ahayn in lagu gorgortamo xuquuqda dadka ku nool Muqdisho. Gobolka Banaadir oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 4 milyan oo ruux ayaan lahayn matalaad siyaasadeed oo sax ah. Haddii matalaad loo sameeyo, Banaadir waxa ay heli doontaa xuquuq siyaasadeed oo qeexan sida maamulada kale ee ka jira dalka. Dadweynaha ku noolna waxa ay yeelan doonaan hoggaan aan lagu soo dhaxtuurin oo ay iyagu soo xusheen, kulana xisaabtami doonaan mas'uuliyadda ay u dhiibteen mas'uulkaasi. magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. warka hawiyo aad u dhageysta. caasimadana hawiyo dadka kama xigo. magaalada ku soo karay wax ku soo bartay. ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba. caasimadda Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharci ah oo ay leedahay oo matalaad ku leedahay. caasimadda Muqdisho uma baahna guddoomiye loo soo magacaabo, uma baahna nin kolba la bedelo. waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato, suujadii loo sameeyo, biyo macaan ay hesho, koronto bilaash ay hesho, dhaqaale dib loogu celiyo. borosayskaasi xilligii horena waa laga hadlay. waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go'aanka gaari waayo, waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin, maqaamka caasimadda inaan lagu murmin, matalaadeeda inaan lagu murmin la qeexo. wax walba wax adoon isku ognahay oo nin walba faylka gacanta u haysta inaan ka tagnaan rabnaa haddii la yidhaahdo. hawsha aan sidaa u wada qaadano yaan la isku dhaga hadlin. anaa ugu jecel caasimaddu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho. qofigii xigaana maanta ma jiro. aad baad u mahadsantihiin. waxaan idinka sugaynaa inaan samayno fulinta waxyaalaha aan heshiiska ku gaarnay, nabadgelyada aan ka wada shaqayno, ay soo baxda muurkii doorashadu, dadku inuu doorasho dalku inuu dareero intaa la dareemo. waad mahadsantihiin saaxiibadayna, aad baan idinku mahadcelinaya. asalaamu calaykum. Maxamuud Soo Faysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.